kusoo dhawaada saaxiibayaal qaybtii saddexaad. Haddaba qaybtan waxaan kusoo qaadan doonaa dagaal aad iyo aad u ballaaran ee ka doona magaalada Kiibkeeda waxaan rabnaa inaan maanta qasno. Haddaba la soco muuqaalka ilaa dhamaadka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan ka subscribe saar kana mid noqo saaxiibta kuwana MKMowga. Si aynu magaalada u qasno marka hore waxaan u baahanahay inaan dhammaan leeyahay gaariyaal wada taxano. qof kastoo gaariyaal soo mariyo waxaan rabaa inaan halkan kaga qaado isagana aan dilo magaaladana aan gaariga dhigo wadada bartankeeda si aan gaariga u dheefnaado. Si aad u jeedaan baalkan waxaa ka aragtaan gaarigayga wadada wada isla markaana ninkii waxaan rabnaa inaan dilo gaariga aan ka qaadano. waxaan isku dayaynaa inaan gaariga wadada bartankeeda dhigno. waxaynu si toos ah u gudagalnay shaqadeenii maanta sidaa darteed gaari kastoon aragno waxaan dhigi doonaa laamida. haddaba sidaas jeedaan gaarigii koowaad waan dhignay sidoo kale kii labaad markaan soo socday inaan dhiganaa mid kastoo halkan soo marba waan dhigi doonaa. mid kastana markaan saa u dhigno waxaan rabnaa inaan dadka layno isla markaana markuu boolisku yimaadana aan halkan qabano. ugu dambeyn saaxiibayaal wadada waan xilliga kadibna hal gaari oo keliya ayaa noo dhiman. markaana gaariga raacay meesha taagan ayaan waxaan rabnaa inaan saarno gaarigana markaan dhigno wadada isaas ay ku xidhan doontaa. waxaan rabnaa marka wixii ka dambeeyana waan dadka layno. isla markaaba saa darteed waanu dhamaystirnay wadadii waxaan la soo bixin doonaa qorigoona waxaan layn doonaa dhammaan dadka halkan soo bixi doona. dagaalku saaxiibayaal nin ayuu maraysaa darteed waxaa laga soo baxay gaarigii booliska isla markaana gaarigan booliska ayaan isku dayanaa isagana u dilno. gaarigan markaanu dilno saas ayaynu ku gabagabin doonaa saaxiibayaal geemka qaybteedii kalunkiisa ku yimidaan. saaxiibayaal booliska intaanu waxaan rabnaa inaan ka hortagno halkaana kaga hortagno wiilkiisa ayaana nagu tegi doonaa waxaan rabnaa inaan dilno. haddii baad halkan muuqaalka la soo gaadhay muuqaalka la heesaa kana mid qaasabta ku MKMowga.